الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan marka koobaad ka tacsiyeenaynaa dhibaatadii iyo musiibadii ka dhacday halkan oo runtii ka fog wax ay sheegan karaan dad muslimo ama diinba loo nisbaynayo wax ka fog bini aadamnimada caqliga bini aadamka ahi wax ka fog wax bashar ama noolo ku soo dhici kara waa wax musiibo lagu tilmaami kara aan ahayn xitaa waxaan marka koobaad ka tacsiyeenaynaa ehelada iyo walaalaha Soomaaliyeed oo anagu u horeyno oo aan ku weynay ubixii dalka hooyooyinkii dalka dadkii Soomaaliyeed ee waxa way birmageydada ahaa indhaha u ahaa aqoonyahankii iyo culimadii ahaa runtii naftayda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa uga tacsiyeenaynaa tacsi kadib falkani waa dhamaadkii ugus waa dhamaadkii argagixisada waa dhamaadkii nimanka laflacaariga ah ee banaysta dhiigga ummadda Soomaaliyeed qarankan inuu burburo u taagan dadka Soomaaliyeed anagu aan u horeyno boqolkiiba 70 ee dhalinyaro ka yihiin inaysan nololna helin nabadna helin nimanka u taagan weeye kuwaas dhamaadkoodii way waxa ficiladan xumaatada la sameynaya waxaan leeyahay waqtigiinni waa soo dhamaaday waqtiga aad ummadda sii gumaadi lahaydeenna waa soo dhamaaday annaga ayaan adunkuna waxaan noo dhaxaysa bishaaradii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ahayd duuba liman qatalahum aw qataluuh laanta janna waxay u sugnaatay ruuxii dila ama ay dilaan qawaarij dhammaadkoodii weeye dadka Soomaaliyeed inay isdhiibaan ma ahan ficilada yaryarka ahi ay samaynayaan in lagu niyad jabo ma ahan dalkeennana meelan uga soconaa ma jirto ciidanaduna waa isagana la ku aasi doonaa ilaa midka ugu dambeeya aad ka dishaan inta adunka la inka dilaana baqtiga ka ugu dambeeya laga tilaabsadaana waa soconaya jihaadka la inkula jiro waxaan ammaanayaa fursaddan uga faa'iideysanayaa wiilasha Soomaaliyeed ee qalabka sida ee meel waliba jooga ee xanuujiya cadawga waxa ka keena ficiladan waa xanuunkii la gaarsiiyay marka xanuunkii aad geysateen waaye waxaan idin leeyahay dadka Soomaaliyeed dadka Soomaaliya dalkuba adinku idin sugaya culimadu waxa leeyahay ha dhaqaaqdo masaajidada ha ka soo baxaan ha sheegaan qawaarijda ficilada ay sameynayaan dadka ku niyad jabin jihaadka socdo oo lagu la dagaalamayna hor kacaan dadka madaxda ahi buruuf ha wadanina madaxtooye iyo meelo kale ha ku jirinina farumaha dagaalka ha la wada tago dhalinyarada waxa waaye ha baqinina meel kasta ka hadla meel kasta istaaga ciidanka daba socda gurmad fidiya maanta wax halkan ka dhacay shala ka dhacay gurmad adagay u baahan yihiin ka faa'iideysta maanta fursadaas inaad walaalka dhiban aad dhig u shubtid in walaalka dhiban aad caawisid $1 oo aad ku caawisid waxay ka qiimo bantaa $100,000 oo aad sida qofkaas maantay waxa loo baahan gurmad qaran waxa la inka rabaa qof walba oo dhalinyaro inuu soo baxo baqdinta iska daaya naftu marbay go'aysaa waxa waaye aan ka jawaabno ficilkii halkan ka dhaca waxa loogu aari karaan waa inaan dhiiga naga shubno waxa loogu aari karaa waa inaan nafta bixinno waxaan aad uga mahadcelinayaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Maxamed Barre oo runtii ka jawaabay baaqa dhalinyarada waa uga mahadcelinaynaa waxaan leenahay isku xirka iyo istaagida hoggaanka dhalinyaradana waa shay muhiim ah xuraynta dalka badbaadada ummadda gurmadkana qaybtanadan ka qaadanaynaa waxa waa u taagannahay meeshii wax ka dhaceena taagannahay waxa la inkaga baahan yahay waxa dhalinyarada Soomaaliyeed inay soo baxaan meediyaha istaagaan meel kasta tagaan dadka isbitaalaadka ku jira gurmaday u baahan yihiin dhiiga waxaan hadda soo aragnay 8 qof oo dhalinyaro inta meel la isugu leexay hal qof dhiigiisa lagu shubayo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war dadkaas inaan u gurmano ayaa naloo kaga baahan ka soo baxa guryaha jaamacaddu hala dhigto laakiin saaka subax jaamacad la aado ma ahan iskuulaad hala dhigto subax iskuul la aado ma joogto culimada mudarrisiinta subax kitaab la aqriyo ma joogto waxa loo baahan saaka nin waliba annaga iyo nimankaasi oo dhiig annaga ibaaxsaday oo ciroole deenayn oo culimo deenayn oo carmali deenayn oo waxaad aragteen sameeyeen waxa noo dhaxeeyahay waa sayf waxa loo baahan marka inaan la baqin intaasan ku bogaadinaya isbitaalaadkana la tago xoolo lacag dhaqaalo cunto dawo wax kasta loo baahan isbitaalaadkana waxa leenna walaalayaal dhiig dadka shubaya iyo dawooyinka u fududeeya lacag ha ka raadinina subax lacag la raadiyo ma joogto intaasaan ku baaqaynaa waana mahadsantihiin
waxaana ku soo gabagabaynayaa dhaqaajiya dhiigga dhallinyaraday dhulkeenna hoyaale ka soo dhiciyay dhiigga dhallinyaraday dhulkeenna hoyaale ka soo dhic cadowgana dhulkana ka qabsanno waa mahadsantihiin